xildhibaanada Hirshabelle ayaa ku kala aragti duwan siyaasadda hogaamineed ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxaana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ka codsadeen madaxweyne Waare inuu iska casilo xilka uu hayo xilli ay tixraacayaan balan madaxweynaha uu la galay xildhibaanada iyo shacabka Hirshabelle taasi oo ahayd inuu isaga qaldan yahay haddii ay isku dhacaan xildhibaanada iyo isaga bal ayna jaleecno maalin taariikheedkan madaxweyne Waare uu balanta kula galay xildhibaanada iyo shacabka Hirshabelle fagaaro warbaahintu goobjoog ka ahayd waxaan ku taaganahay kalsoonidiina waxaan ku taaganahay dareenkiina waxaan halka ku taaganahay rabitaankiina sidaas daraadeed waxaan gaar ahaan martida sharafta nala joogta rabaa inaan caddeeyo markhaati ayaad ka tihiin kalsoonida maanta la siiyey haddii dhowr bilood kabacdi aad maqashaan madaxweynihii iyo baarlamaankii is haysta qofka dembigaas iskale maanta waa garan kartaa aan malayn anigaa iskale balantii madaxweyne Waare aragnay muxuu yahay codsiga xildhibaanada daliishanaya balantaasi waa kan xildhibaan Cali Ciile oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle waxna ka yiri balankii madaxweyne Waare mudane madaxweyne adigoo sharaf leh sharaftii sharci lagu dar balantii aad qaadi oo ahayd haddii aan 6 bilood shaqayn waayo waa idinku soo celinaa sharaftii iyo karaamadii dhisiiseen haddii ay xildhibaanada qayliyaan ana gardarana beesha caalamka ee marqaati ka noqo balantii aad qaadi maanta ay taagantahay ku soo celiha ka bixin وفو بالأحد إن الأحد كان مسؤولا شعب كسوماليات أدي قاضي صحافة حرطة أياد هرتاجنت قري كوها يسمى مجرين شرفتي إبلغات كده أمضاس الصوماليات قارها هيرشبل أدو قاضي ما أنت أي تاجنت هاي وحتى الشرف كل هذا هاي أديكو أمانا مدحوينا الشرف له إن البرلمان كان أنت كسو نقطة هذا أبي ما أهباور كان وودي وعسل هذا إن تكسو إليسو أي شرف كو الله كإن الميلها سكر رفته حلبان شلي وزير كديجي ما يأتي inaad maanta tiraado wasiiran ka dhiga oo aad cimri dheeri ka raadiso wax sharaf iyo karaamo ay ku keenaysan balihin waa arin aan isleeyahay cawaaqibkeedana tii ilaahay ka sokow baarlamaanka iyo bulshada Hirshabelle way arkaysaa wayna ka jawaabi doonaan aadan odiwa qudhiisa baarlamaanka Hirshabelle ayuu ka tirsan yahay waxaana madaxweyne Waare uu ka codsanayaa inuu kursiga baneeyo maadaama uu gudan waayay wixii loo idmaday sida uu aaminsan yahay isaga waxaan leenahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare hoggaankaas aad iyo aad ayuu ugu fishilmay runtii mid la fiilay shacabka ay sugayeen ma aha shacabkii Hirshabelle taas uu ku hungoobay dib dhacaasna sabahiisa waxa iska leh hoggaanka sare waana ku fishilmay si daacadnimada uu ku hogaami waayo marka waxaan leenahay haddii aan xildhibaanadii dawlad goboleedka Hirshabelle in Maxamed Cabdi Waare maadaama uu ku fishilmay hoggaankaas inuu xukunka si degdeg ah oo isaga casilo xildhibaan Calaad Guuraxayo waxa walwal ku haya in wasiir 9 bilood mushaar la'aan shaqaynayay xilka laga qaado waxaana uu sheegay haddii madaxweyne Waare uu qaado talaabadaasi ay sababi karto xasilooni daro siyaasadeed waxaan sheegayaa inta la sheegay waa run nin la qoray oo la yiri wasiira tahay oo 9 bilood wasiir ahay oo na kumin la siin oo la yiri maanta waa lagu bedelayaa karaysay dhalinaysa kala jajabaysa dhalinaysa burburaysa dhalinaysa xildhibaanka la leeyahay ana uu daafacaya oo waxba siinaya asiga ruuxiisu waa aaminsan yahay in xaq darro lagu dooranayo oo xaq darro loogu dhigo deyd la isaga dhigayo bood lagu gambado la isaga dhigayo Hamdi Dol Sam News Jowhar